shirkan oo qayb ka ah shirarka golaha wasiirada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed khamiis walba ay ku yeeshaan xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka ee magaalada Baydhabo. Toddobaadkan waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. shirka ayaa waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo ka warbixiyay xaaladaha guud ee amni ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo howlgalladii ugu dambeeyay ciidamadu ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin hoos imaanaya Koonfur Galbeed iyo guulihii ay ka soo hooyeen. shirka ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyay sharciga booliska gaarka ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed. wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Koonfur Galbeed ayaa laga dhageystay warbixin guud oo ku saabsaneed natiijada imtixaanada fasalkii 8aad oo dhawaan ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo qorshayaasha lagu tayeynayo waxbarashada Koonfur Galbeed ee wasaaraddu xilligan ay wado. shirka oo in muddo socday markii uu soo cidlaaday waxaa warfideenka la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdifataax Ali Yuusuf. mayban ku furmayay xarunta ku meel gaarka ee degmada Baydhabo golka madaxtooyada oo yaani ajandaha shirka may bahaayay inii oo wasiirka amniga dowladda Koonfur Galbeed warbixintii amniga guud ee toddobaadlaha ya warbixinka mayba kale oo geedka la ansixiyay sharciga booliska Koonfur Galbeed sharcigaas oo toddobaadkii hore la geeyay golaha wasiiradana aan ku maqnaayeen sidii akhriye lahaayeen marka geedka oo sabtiga ya kulankii oo golaha wasiirada madaxweynaha shir gudoomiyay ya may sharciga la ka ansixiyay sharciga booliska Koonfur Galbeed oo yaani golihii wasiiradii dhammaan oo shirka goobjoog ka haayeen oo shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mayba la ka ansixiyay oo may leeyahay gacantaaga dhammaan golaha wasiirada ansixiyeen waldiidina ma lahayna walka aamusana ma jarna mayba kale oo warbixinka biyay wasiirka arrimaha gudaha dowladda Koonfur Galbeed warbixinadii guud ee xaaladaha degmooyinka Koonfur Galbeed may kale oo warbixin oo wasaaradda waxbarashada dowladda Koonfur Galbeed waxbarashada imtixaanaadkii guud ee la shaaciyay ardayda oo Koonfur Galbeed ka qeyb galay tiradiyo iyo mayba la wadaagay golaha wasiirada iyo imtixaanada oo ku horeeyaan ardayda Koonfur Galbeed in kaalmo fiican iyo ka galeen. Siraaj Isaaq warbaahinta qaranka Baydhabo.